run ahaantii jacaylku waa tartan qarsoon oo ogaanshihiisa ay waqti qaadato mana fududa marka u horreysa in la dareemo gabadh ku jecel sida ay u fudud tahay inaad dareento waxyaabaha kale had iyo jeer dadka uu jacaylku la soo dirsa rag iyo dumarba si daacad ah ugama run sheegaan ku dhiirashada inay si bareer leh u soo bandhigaan jacaylka ay u hayaan qofka ay sida dhabta ah u jecel yihiin waxaana inta badan la soo dirsa dareen baqdin iyo cabsi leh iyagoo ka cabsi qaba haddii ay u soo bandhigaan shaqsi ay jecel yihiin in lagu gacmo saydho oo ay la kulmeen weji gabax waxaana niyadda ku haysaa in qofka sida dhabta ah kuu jeceli aanu sinaba kuugu soo bandhigi karin rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee waayo mahmaahin Ingiriisi ayaa tiraahda true love don't love each other but they know they do oo micnaheedu yahay labada qof ee sida dhabta ah isu jeceli lagama yaabo inay isku yiraahdaan waan ku jecelahay midba midka kale balse way ogyihiin waxa ka dhexeeya waxna isku dareensiiyeen waa ficilo aad ku garan kartay inay si dhab isu jecel yihiin sidaa ogeed haddii aanu sii ogeyn qofka wax jecel jawaabta uu kala kulmi doono qofka uu jecel yahay marka uu jacaylkiisa u sheegin waayo waxa ay ku kaliftaa qofkaasi ama sabab u ah in qofkaasi uu qarsado jacaylkiisa taasoo khatar caafimaad oo nafsaani ah ku keenta qofka wax jecel waxaa jira dad uu ka xoog bato dareenka qiirada leh ee jacaylka oo si fudud looga fahmi karo rag iyo dumarba si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhaqamo iyo caadooyin badan oo u diiday gabadha ceebna ku ah inay si fudud u soo bandhigto wiilka ay jeceshahay jacaylkeeda iyo waxyaabaha ka dhabta ah ay ku dooratay ama dareenkeeda naf ahaaneed waxaa kale oo jira dhaqamo iyo caadooyin u fasaxaya gabadha inay ku dhiirato sida ay u soo bandhigi lahayd jacaylkeeda tusaale ahaan gabadha ku nool qurbaha oo kale ceeb kuma aha inay tiraahdo hebelow waan ku jecelahay sidaa daraaddeed ragga way ku adag tahay inay ogaadaan gabadha aadka u jecel maxaa yeelay dumarku uma qirtaan jacaylka sida uu yahay sida ay raggu u qirtaan oo kale xataa haddii uu dhab ka yahay sidaa awgeed waxaa jira waxyaabo badan oo ninku si fudud uga fahmi kara gabadha aadka u jecel waxayna kala yihiin qodobadaasi isagoo ninku isbarbardhig ku sameeya oo qiimayna ku sameeya habdhaqanka ay gabadhu dadka ula dhaqanto iyo sida ay adiga kugula dhaqanto haddii aad gabadha ka dareento inay ku siinayso tixgelin ka badan tahay dadka kala siinayso gabadhaasi way ku jeceshahay sidaa ka ogow dumarka qaar ayaa aad uga warwara badbaadada qofka ay jecel yihiin sidaa daraaddeed haddii gabadhu ay aad xil isaga saarto inay ogaato halkaad joogtay waxaad ku sugan tahay iyadoo ku weydiinayso dad xogogaal ku ah gabadhaasi way ku jeceshahay haddii gabadha ku jecel aad ku aragto hinaase waxaa lagu sifeeyaa aragtida noocaasi ah inay tahay qof aad kuu jecel maxaa yeelay hinaasaha laftiisu waxa uu qayb libaax ka qaataa jacaylka dhabta ah ku hayso haweeneydaasi gabadha ku jecel ee aan kuu soo bandhigin jacaylkeeda waxa ku abuurma dareen baqdin waxaanay had iyo jeer ka warwartaa inay weydo ninka ay jeceshahay oo u raaco gabadh kale oo aan iyada ahayn haddaba haddii aad ka dareento gabadha aad wada sheekaysataan ama walaaltinimadu idinka dhaxayso astaamahan waxaa lagaaga baahan yahay inaanad lumin jaaniskaasi oo aadan dayin jacaylkeeda ee aad ka faa'iidaysato fursadda qaaliga ah run ahaantii waxaad si fudud u soo jiidan kartaa una ogaan kartaa kuna kasban kartaa qalbigeeda gabadha aadka kuugu jecel markaad astaamahan aragto adigoo isku dayaya markaad si dhab ah oo aan dheeldheel ku jirin aad u hubiso qodobadan inaad si tallaabo ula kulantid ulana haasawdid ina soo jiidatid gabadhaasi ku jecel ogow haddii aad ka xishootid haasaawahan oo aad yeelin weyda ku dhac kalsoonida dhexdiina taallaa meesha ayaa ay ka baxaysaa qormadan oo qoray cabdiraxmaan maxamed xasan intaas ayay nooga